haddaad eegtid waxyaabaha aad isleedahay barnaamijkaaga ku jira ee aad isleedahay dadku markay akhristaan ama way ka helayaan oo way kaaga dooranayaan labada murashax ee kale maxay waxa weeyaan waa labada mashruuc ka barnaamij siyaasadeed male anigu barnaamijka siyaasadeed anoo dalka aan xisbiga sameeyay baan sameeyay 1997 baan bilaabay si aan siyaasadda aan wadda ku hogaamiyay u bartana 1997 1996 jaamacadda Helsinki University ayaan political science social policy aan galay waxaan weligaa xiiseyn jiray anuu social democracy baan ahaa weligaa waxaan xiiseyn jiray siyaasadda Scandinavianka Swiss style of state style keeda aan jeclaan jiray marka anu waxa weeye social democracy baan ahay waxaan emphasize garanayaa social policy-ga waxa weeye kow tacliinta iyo caafimaadka labada meelood doon emphasize gareeyo doonayaan dadka ka haqabtiro doonayaan qof kasta oo reer Soomaaliland regardless qabiilkiisa iyo meesha ku nool yahay inuu xaq u helo waxbarasho siman oo falaad waa caafimaad iyo waxbarasho meesha kale sameeyo waxa infrastructure agabka dhaqaalaha in horumariyo wadooyinka waxaan doonayaa 10 sano isku xidho gudahood wax laami ah iyo wax arkawa wadanka wadooyinkiisa in dekedaha oo dhan aan develop gareyn doono insha Allah airport sameeyo doono in jawi sameeyo lagu maalgashado dalkeena conducive climate for international and national investment sameeyo rural development aan doono insha Allah luka zanaag oo dhan waxaan soo sahamiyay zanaag waa dhul deexaan ilaa 150 milyan oo area ida waliba ida ayaan ku noolaan karnaa hadda sida Australia oo kale inaan ka dhiga meesha farm and livestock farms ka sameeyaan doonaya waxaan doonayaa insha Allah taala inaan xoolaheena waa badroogkeena waa daabkeena aan market ka balaariyo oo is the same time hadana aan ka bedelo inaan one item qura ku taagnaanay diversification of economy aan sameeyo knowledge economy aan sameeyo badda kalluunkeena oo qaylo waxba kama helo waxaan doonayaa reer miyiga u sheesita inaan barta saa loo qabto crash programs reer miyiga u sameeyo vacation schools iskuulada waxaan ka dhigayaa 75% ardaydeena inay bartaan gacanta ka barta skill aan balantoon imaka waxaan noo shaqeeyay qaxoontiga Asooria Kiyamaneed baan gacanta noo shaqeeyay guriga waxa decoration ku sameeyo waa ajnabi dadkeenu garan maayo internet decoration tiles ma dhigi karaya waxaan doonayaa waxaad soo hadal qaaday in dad badan halkan ka shaqeeyaan oo Suuriyan iyo Yemen iyo dad noocaas dhalinyaro badan baa waxay ka cawdaan shaqo la'aan baahsan inay jirto waana waxyaabaha loo aaneeyo tahriibka iyo arrimahaas haddiiba aad kursi ku guulaysto ama barnaamijka siyaasiga qayb ma ku leeyihiin shaqo abuurka kale maxaa kaaga mid horta ku shabay shaqo abuurka waxaan markaan ku leeyahay waxaan skill baan ka barayaa waa shaqo abuurka ka mid tahay oo imaka dadka noo shaqeeya ee guryaha noo dhisaa waa dadkii ururkii Soomaaliya oran jiray intaanu burburin dadkii ka soo baxay ee wastaa fundiga bartay nijaarada bartay ee noo sameeya daaqadaha soo sameeya badan marka waxa weeye dawladdu dadku dhamooda qoran karto waa in horta aynu maqaanaysaay aynu waa free market baa dhaqaalaha weeye suuqa horta inaan dadka dhiiri geliyaa investment soo jiidashada international inta adduunka soo jiidashada aanu dadkii shaqo qoriya imaka adoo kala timaado tahay waxaan sameeyaa business ma abuuranaya intaas qof baan shaqaale gelinaya inaan ku kabaaway oo policy siyaasadii South East Asia elected tires aan sameeyna oo qofkii la yimaado fikrad oo reer Soomaaliland doonaya inuu implement gareeyo hirgeliyo fikradaas oo shaqo abuura oo dhaqaale kordhisa in dawladda caawisaa weeye waxaan sameeynaa Somaliland Investment Board waxa la yiraahdaa xafiis qura oo si xafiisyo badan dadku ka caajisaan tagin meel qura ka soo baxay go'aanka investmentku Somaliland galgalinta qaran ay sameeyna boardkaas oo wisi 72 hours qofka uu dhamaanaya oo corruption ku jira ma doonaysaa sameeyna markaan dhigno yani jawi maalgashi lagu gashan karo dalka oo lagu aamin karo dalka dawlad wanaagsan oo transparent oo sharci u shaqeynayo oo ka xaaraan musuqmaasuq markaan sameeyno modelka waxaan qaadanaynaa Singapore I want to be the lead of Somaliland
Soomaaliya waxaan doonaya noqoto the Singapore of Africa. That's my vision. dhinacan waayaha nolosheen ku jiraa murashaxiin baa tihiin nolosha dadka waad ka warhaysaan hadda tusaale ahaan waxyaaba aad ku taabanaya waxaa ka mid ah sicir bararka waxaa laga yaabaa halka dollar inuu xilli hore ahaa $6,300 $6,300 Somaliland haatanna waad dareemaysaa waa ilaa 9,000 iyo wax ka badan ilaa 10,000 oo shilin ayuu maraya noloshii wixii laba laabantay arrintaas adiga ma ku taabatay gudood waxay tahay weyde everybody waa taabanaysaa ma taqaanaa cid ka amaan helaysaa bahalka la yidhaha sicir bararka ma keen sicir waa hyper inflation baa la yidhaha kaa waa ka imaka haysa magaalada saaib Venezuela haysta wey waxaan doonaynaa insha Allah tacaala anaga horta koob marubinka waxa weeye baan hagaagsan ma haysano horta waxaan doonaynaa in empower garayno central bank tagana waxaan doonaynaa inaan sameyno commercial banks ku dawladeed oo ka faracma iyo ku international bank teeda waxaan sameynaa lacagteeda in horta wadanku dhan gaarsiino taayada waxay ku eeg tahay laasacad xitaa kama socoto buuxda kama socoto doon lacagteeda aan wan currency aan sameynaa weeye talabaad waxa weeye waa inaan joojinaa magalanaysaa importka aan soo dajino baaqi lagu talso wixii unnecessary oo dhan baaburada second handka iyaga iyo baaburta collection oo dhan waxaan kordhinaynaa cashuurtooda waxaan ummadayda u hirgelinaa inay wax dhoofiso waa inaanu qaar currency aan galaynaa ima qaar currency aan helaa waxa weeye dadka lacag dibadda soo dira xoolihii oo qura ayaan dirnaa xoolaha waa in market ka doonaa aan ka saarnaa monopoliga labada dhinac carabta haystaan waanu ka saarnaa waa inaan wax kala dirnaayo aanu kalluunka dirnaa beeyada dirnaa hargaha dirnaa waa inaan export oriented society ka dhignaa oo anagu marka surplus noo soo gala inaan kacna maahe waa inaan dakhligaygu uu ka bataa demandkayga dekeda berbera waxay ka mid tahay waxyaaba miiska yaalla iyo saldhig dawladdan soo socota horyaalla adiga haddii lagu doorto موقفك وحي labada waan encourage garay dawladda lama aamino moogta ninka dadka ku dhiirgalay this is the right decision taageeray aan waxa ka beeskana waa ka qayb galay it's only bid aan ka qayb galay heshiisiisi iyagii qaar kale waan sameynaa insha Allah taala waan hirgelinayna waa meeshan ka gelinay magaalada saay wadada ka gelinay adduunka aaminaadiisi waa wadada ka gelinay carabta la saaxiibno marka wada saaxiibo malhiin marka inaan Emirates ka galo inaan wadamada carabta ay arintay ka horgeliyaan kulmi wadana ka soo horjeeda wadana ka soo ku kaambeyn garanaya ana waxaan ku kaambeyn garanaya iyagii qaar kale waa keenna waana talaba fiican baheed dawladana anaga ku qasbay ili kuliishanka anaga dawladda markii baan aynu farmaajiyo dawladdiisu way diideen inuu khaliijka aynu ku xiranahay sacuudiga aynu ku xiranahay danteenu waxay ku badan tahay kuliishanka raaca was give that advice waanu ku taageeraynaa gabagabadu waynu imanaynaa haddii baad guulaysato waxaa jira wada hadallo Somaliland iyo Soomaaliya oo haatan aad ogtahay halkay ku dambeeyeen adiguna rol badan baad ku lahayd ilaa bilowgii gacantaad kula jirtay maxaa kaaga mid horta literally Soomaaliya ma jirto gaaladu baa wax aan jirin iska ictiraaftay si ay u isticmaalaan magacan oo la dagaalamaan dhalinyarta berigi waa nagu qasbay maraykan waxa nagu qasbay ingiriiska oo aad iyo aad uga ixtiraamno ayaa nagu qasbay laakiin waxay xeelad kala jabiyeen marka ictiraafay waxaan jirin anagu waxa weeye qorshe aanu horto wax kasta road plan action plan Soomaaliya arinteeda anaga la soo wareegina gacantaan ku dhigana waxaan doonaynaa inaan Soomaaliya halkan dadkooda qabaa'ilkooda ku shirino Soomaaliya ma heshiinin si isku dileen waa cul wada yaala waxaan jecelahay inaan halkan ugu sameeyno bottom up approach sameeyno oo markaan iyaga dhexdooda nabad ka abuurno isa saamaxaan dadku isjilaawan saamaxa iyagu ma kala maarmayaan anagu waan kala maarno laba wadan isku darsamanayaan laakiin anaga imaka reer awdal iyo reer sool ma kala maarno waan soo qasabnaa wada noolno laano geographical bay ilaahay isku xiray iyaguna ma kala maarmayaan marka in isjiid ay sameeysan dawladda qabaa'ila oo murankii sii badaya horta waxaan sameeynaa dawlad midaysan oo sameeynaa waan ka baabiinaa dawlad goboleedka decentralization ha sameysteen heshiiyeen marka iyaga oo Soomaaliya administration-koodii dawladda Soomaaliya 60kii ku darsanay iyagoo sheebkeedii leh yaanaga oo ririti leh 60kii oo dhisan waan wada hadlaynaa waan doodinaa anu waxaan leeyahay war anaga waxa ay aragtaa anigu Soomaaliya inay dan u tahay
inagoo parallel two states walaala noqono idigu waxaad doonaysaa inaan wax isku darsano bal i qanciya anna waa idin qancinayaa markaa tii markaan ku qanciyo tahayana jini dad iyagoo imaka kaalkacaya kala goynaya taana uma tegi karno annagu waxaan la dhaqanahay oon la habnahay oon la dhaqaala ku xidhanay soonaha shanaad iyo jabuuti iyagoo inay fidhiyoga yihiin markaa inaan soomaali ay meel kastaba qoladeeda meesha ilaahay ku barakeeyo oy koraan oon iska dhex helno iigaad dhexdeeda shanta soomaaliyeed taas maalin durta maxabuub la dooranayay secretariga wixii igad raggii mataliyey 3 baa soomaali ahaa suudaanna way qabsadeen uganda saasay u jabiyeen marka waxaan command gareynaynaa policyga iyo siyaasadda iigaad marka 5 soomaaliyeed Ethiopia ku jira Soomaaliyeed Kenya way ku jiraan Djibouti waatan Soomaaliya waatan magac waa bedelna insha Allah Soomaaliya waat magaciigan u deynaa moogtahay anagu waxaan la baxanaa Soomaali land ka waan ka tagnaa state Red Sea Ogolis state amba magaalada Saaye Shankaroon magacaan doorana insha Allah taala laakiin magaciigan u deynaa insaan isku qaldamin moogtahay marka 5 Soomaali ah ani qowmiyad ahaan ayaan markaa abuurnaya waxa iska jira kaftanana ka dhigay dadku dacayada la iska sameeyaa saanaha waxa la Faisal waa nin fudud oo aan sal lahayn oo meel loogu soo hagaago aan lahayn oo maalinba dhinac iska raaco oo shalay yiri maanta beenay taas lagu dhisbay waxa lagu yiri wali shalay iyo maanta ma lihi kuwa ka shalay maanta lagu soo saaray hada qubada 2003 ga akhridin iyo tayda waa isku mid kulmiya biki dacaadeen jiro kulmiya marka issue la yimaado bas ayaan imbish gareeno reale dawladku meegaala sameeyno waxaan impeachment ka soo saaray inuu ku soo noqdo diiwaangelinti ma ku soo noqday soo isbedeshay ma in wax condition baa helay marka kulmiya bari waxay u dhacay laakiin sida imka siinaaya lagu soo saaray si rag badan siyaasadda ku soo saaray bal ordo tago clip qura on shalay tan wax leeyahay maanta wax leeyahay soo saar kanin go'aankiisa ku aaday ana consistency ma leeyahay 2003 2019 99 hadda agta qodbadaha wali أنا حسب الصمين أنا شاري ده لحد الجري إلا ما أنت consistency مالي the only person كبر على principle in Somali land وأنا